بسم الله الرحمن الرحيم داوديال هبين وناكسن meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeena imtixaanaha taariikheed oo aynu kaga hadalno si xiriir ah barnaamijyada ku saabsan hawlgalladii ururka SNM iyada oo weli aynu ku guda jirno ama gabagabadii barnaamijyadii ku saabsanaa aagga galbeed ee Buuraleyda waxa naga xusuusina in barnaamijkani uu u sinaan doono una siman yahay guud ahaanba hawlgalladii 84kii ay ku soo galeen dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ururka SNM iyada oo aanu ka soo bilownay qaybta galbeed kuna xigi doonto bartamaha dabadeedna qaybta bariga aan u gudbi doono hadii eebaha awood leh uu ogolaado sideedaba taariikhda ummadi leedahay waa inay noqotaa mid ay si fudud u heli karaan cid kasta oo doonta isla markaana waa in taariikhda qaran soo martaa ay tahay mid ka fog been iyo in si khaldan loo tarjumo sidaas darteed haddii aynu dhammaanteen nahay muwaadiniin danaynaya ciidooda hooyo waa inaynaan si kale u fahmin markastoo laga hadlayo sooyaalkii taariikheed ee ina soo maray sidoo kalena kuwa u soo gudbinaya ee u soo taagnaa dacdooyinkaasi aynu ka hadlayno ee taariikhiga ah waa inay xaqiiqada ka tarjumaan dhinaca kalena marka uu qofku ogolaado jiritaanka walaalkii ayuu isna wax noqon karaa taas waxa ka dhigan marka aad ogolaato darajo walaalka gaadhay kuna cisayso ayaa tahay shakhsi jira taasna waxa ka dhigan markay ummadi sare u qaado qofkeeda ama qaar ka mid ah bulshadeeda oo sababay madax banaanideena waxay ummaddu buuxisaa ama ay ka soo baxdaa shuruudihii qarannimo qaar ka mid ah haddii aynu tusaale ahaan u soo qaadano wadannada horumaray ee dunidu waxaad arkaysaa in waxyaabaha ay heerarkaas ay maanta taagan yihiin ay ku gaadheen ay ugu weyn tahay ama ay ka mid tahay kalsoonida iyo mudnaanta la siiyo qof kastoo qarankiisa isu xil saaray iyada oo aanay cidina ku khasbin waxyaabaha la iska maanaco waxa ugu weyn taariikh jirta oo la baalmariyo ama loo bareero in la aaso iyo in been abuur laga sameeyo haddaba haddii aynu taas ku dhaafno silsiladii taariikheed ee soo martay mujaahidiinta ururka SNM miyaanay ahayn in mid u baahan in la xuso iyada oo aan laga tegaynin ama la dhaafaynin meel laba ama dhacdo kasta oo soo martay ururka dabadeedna miyaanay habboonayn in loo hibeeyo xurmo iyo qadarin mujaahidiinta ururka SNM ma aha kuwo u kala sokeeya ama ugu kala dhow dhammaanba warbaahinta dalka sidoo kalena hawlgalladii dalka ka dhacay waxa sideedaba habboon in loo soo qaato mid iyada oo laga boganayo ta kale waxa lala yaabo ah ama laga xishooday in barnaamijyada lagaga hadlayo taariikhdii mujaahidiinta ururka SNM soo mareen xoreynta dhulkooda hooyo dadka qaar ay u arkaan weji ka duwan kii looga dan lahaa ama loo soo qaatay waxa kale oo iyaduna naga xusuusinaya in barnaamijkani uu yahay mid la doonayo in lagaga midha dhaliyo ama loogu sameeyo mujaahidiintii ururka SNM ee u soo halgamay dhulkooda hooyo xoreyntiisa taariikh meel u taala taasi oo lagu xuso aayaha ama waqtiga soo socda haddaba inagu oo u gudagelayna barnaamijkeenii caawa aanu idinku talagalnay waxa inoogu diyaaray barnaamijkan caawana Cali Cabdilaahi Cabdi Cali Case oo isaguna ahaa mujaahid ka tirsan mujaahidiintii ka howlgashay Buuraleyda galbeed sanadkii 1984kii kaas oo markii dambana noqday mid isagu si gaar ah ama keligii ka soo samata baxay jabkii ku dhacay ciidamada aagga galbeed waxaanu hadalkiisa ku bilaabay Cali Cabdilaahi Cabdi Cali Case sidan soo socota barnaamijkan kolley mujaahidiin badan oo igu horreysay ayaa details uga sheekaysay waxaan jecelahay bal inaan waxoogaa ku yar noqdo dagaalkaasi iyo kuwii kale ee la midka ahaa sida kii Buuraleyda Sheekh iyo xagga bariga dhinaca Buurlaab waxyaabihii keenay sababihii dagaaladaasi in ay SNM ururkii SNM uu dagaaladaa galo waxyaabihii kalifay baan doonayaa inaan ku yar noqdo waxoogaa taariikhda run ahaantii waxaa jirtay SNM waxay ahayd urur mabdi'iisu yahay dib u xaraynta dalkan
dagaalka uu ku jiray kuwa lamida na isagana waa lagu hayay intaa haddii ay tahay xagga siyaasadda iyo haddii ay tahay xagga qorigaba waxaa jirtay waqtigaasi dowladdii Ethiopia ee ay asana martida u ahayd in ay ururo kale oo siiba ururku SSDF oo waqtigaa xoog weyn ku lahaa saameyn weyn ku lahaa Ethiopia gudaheeda in ay kalifeen inay dowladda Ethiopia ay tiraahdo SNM ku biira SSDF iyadoo oo markaasi u arkaysay SNM inay tahay jabhad yar oo aan magaranaysa xoog badan lahayn taasi oo ka dhaadhiciyeen madaxdii SSDF SNMna weligeedba doorsi iyo inay cid kale diidan u noqoto intii raalli kamay noqon halkaasi SNM waxay go'aansatay inaanay SSDF ku biirin sidaa daraaddeed SNM waxa ay weydiisatay dowladda Ethiopia in ay waqtigaa ka hesho xogaa huba dabadeetna halgankeeda iyo dagaalkeedaba gudaha ay ula wareegto oo ay Ethiopia ka maaranto run ahaantii markaa ciidamo SNM oo ka soo baxayay awaare ayaa jiray oo xoog lahaa wixii kale ee hore usii joogayna waa la isku ururiyey si intaa awaare ka soo baxaysaana marka ay soo diyaargarowdo dabeeta gudaha loo wada galo anigu waxaan ka mid ahaa ciidamadii xagga galbeedka joogay dabeelweyne ciidamadii joogay baan ka mid ahaa ciidankii dabeelweyne iyo ciidankii quraca raamaale meesha lagaa joogay iyo duriya ciidankii fadhiyey iyo ciidan sheerdeer meesha lagaa joogay intaasoo ciidan ayaa waxaa la isugu geeyey meesha la yidhaahdo la fadhiisay halkaasi oo laga diyaar garoobayey sidii gudaha loo geli lahaa waxaa jirtay intii aanaan anagu gudaha gelin aanaan halkaa ku diyaar garoobin waxaa jiray ciidan kale oo isna SNM ahaa oo u badnaa ciidamadii siyaad barre ciidankii siyaad barre ka soo tallaabay oo meesha la yidhahdaa qaybta deganaan jiray ayaa la raray waxaa sheerdeer buu deganaan jiray markaa ciidankaasi ayaa intii aanaan anagu halkaa ku diyaar garoobin ka hor ayaa wuxuu galay wuxuu sameeyey gudagal ciidankaasi ilaa 25 nin meelahaas ayuu ahaa buuraleyda aan anagu soo geli doono iyo in kale oo xaggan waqooyiga hargeysaba ah ayay ciidankaasi mareen adigu ciidankaasi wax dhintay iyo wax la qabtay iyo wax nabad galeba way noqdeen waxa dhacday halkaa intii aan anagu ficisa diyaar garowga ku jiray dee waxay ahayd dhul isku furan xaaladdeeda waa laga warhayay kollayba diyaar garow inaanu gudaha wadanka gallo wax shaki ku jiray oo qarsooneed markaba may ahayn kollay cadowguna xogtayada aad buu u hayay waana laga diyaar garoobaya ciidanka iyagaasi oo ka koobnaa adugu 150 ku dhawaad 146 ayaa lagu sheegaa 144 iyo 6 nin oo dambe oo dalaqoon ahaan loogu soo kordhiyey oo sheedada keenay ayaan halkaa kaga soo anbaxnay waxaanu soo anbaxnay 5 November galabnimadii 5 November 1984 galabnimadaas baabuur baana soo qaaday waxa ayna keeneen meesha la yidhaahdo Awbax fiidkii goor fiid maqrib ah ilaa 7 habeenimo meelahaas ayaan halkaa loo ka soo bilownay waxaanu ku dhaqaaqnay jihada waqooyi markaa xisaabtanku waxa uu ahaa aanu ku xisaabtamaynay halka ugu dhow buurta inaanu ka gallo halka buur noogu dhow inaanu ka gallo sababtu ahay waxaanu ku xisaabtamaynay ilaa aanu gaarayno halka aanu ku soconnay ama gudaha hore ee wadanka in aanu iska ilaalino inaanu wax dagaal ina qabsan sidaa darteed baa halka buurta ugu dhow ayaanu talagalkaygu haynu ka galno
nasiib daro wadada isku xidha buurana iyo hargeysa halka jidcadaha marka waxaanu ka galay aag dila ka galbeedeeya ila iyo waxay u dhaxaysay kulley garayo cawl dhulka aad aanu kulley ma kala garanayn halkaasi ayaanu ka talawnay halkii aanu ka talaabaynay ayaa rasaas ay nagala kulantay rasaastaasi waxba kumaanaan ridin waxaa laga yaabaa in adigu ilaa 3-4 xabadood meelaha col annaga naga tirsanaa ku rideen laakiin waan iska dhaafay waxa kale oo aan maqlaynay markaa aan rasaastaasi dhacday qoraya cawl oo halkii taliska ciidanka ahayd siyad bare in rasaasi ka dhacaysay badan oo rasaasin suugaa waan maqlaynay taasi waan u qaadanay kulley in warka un la isgaarsiinayo inaanu meesha gudubnay adigu waxba maanaan xaalayn waanu iska dhaafnay buurtaanu galay waagii baa bariyey goor ay ahayd farqadii ilaa adigu ayaanu meeshii waxba maanaan adigu seexad iyo waxaa may ahayn waanu ku yar nasanay war adigu duhurnimadii ayaanu halkii dagaal ayuu nagaga bilaabmay annaga oo markaa kolonyeysanay oo xagga waqooyi usii socno halkaa maalintii u horreysay oo ahayd maalintii koowaad aanu gudaha ku jiro 6dii bisha halkaa dagaal baa naga qabsaday dagaalkaasi ilaa maqribkii uu socday halkii khasaaro badan nama gaadhin kulley waxaan sii xasuustaa in ilaa adigu 2 mujaahid naga dhaawacmeen mid dhaawac yar culus ahaa markii dambe halkii nagaga hadhay iyo mujaahid maxamed weere oo halkan kulley ku wareysatay lasoo dhaawac fudud qabay halkaa habeenkaasi waanu kasii dhaqaaqnay waqooyi baanu u kacnay goor waa dhawaadkii waxaanu galay meesha la yidhaa buur baanu galay buur marka dambe la yidhaa waxaa magaceeda laygu sheegay waxaa la yidhaa sharow dheer buurtaasi ayaanu maalintaana ku dagaalanay maalintaasi min subaxnimadii ilaa gabaldhicii dagaalkaasi wuu socday wuxuu ahaa kulley dagaal aada u bacan buu ahaa ciidanka iyagu buurta ayuu fuushanaa ciidamada cadowguna xagga hoose ayay ku jireen helicopter ayaana dul socotay oo kolleyba iyo dusha naga sawiraysay oo sahanka iyaga iyo intaanu kala deganahay sheegaysay waxa kale oo jirtay istaraatiijiyadda rule control way nagu yaray helicoptertaasi meel kasta oo biyalay oo dhulka naga horeeya ah ciidan baa la sii dejinayay oo biyahana laga xidhayay dabeetoo dagaalkaasi maalintaasi goor dambe oo fiidkii ayuu dhammaaday dagaalkaasi markii uu dhammaaday kadib ciidankii rumacaantii sidii uu awal u dhisnaa ciidanku wuxuu u dhisnaa 4 weymood iyo muxuu ahaayey gurinta taliska sidii uu u dhisnaa qaabkii uu u dhisnaa habeenkaasi wuu jabay waayo markii laga baxayay meeshaasi habeennimadii ciidankii sidii u wada socday sumuu raacay waxaa laga yaabaa in ay 2 nin meel martay 50 ninna dhinac isu raaceen kolley maalintaasi wixii ka dambeeyey anugu qolkii aan raacay un baan warkiisa un hayaa waxaan filayaa inaanu noqonay qolada ugu badan ee israacday kolley cabdillaahi askar oo ahaa taliyihii ciidanka iyo axmed xasan way sacado isna saraakiishii ka mid ahaa adigu ilaa 28 nin rag aan ku qiyaasaya meelahaas ayaanu isku raacnay habeenkaa buurtii aanu maalintaa kuushalina dagaalka nagu qabsaday iyo tu kaloo kusoo jeeday oo aanu markii dambe fuulay ayuumanu tii kale dusheeda seexanay maalintii aduu waxba dee hurda may jirin aanu halkaasaanu maalintaa ku nagaanay buurtaa kale dusheeda rag badan oo mutacalimiin ahaa ayaa dagaalkaasi ku jiray kareemkii asanan oo raggii goonyahanka ahaa
halkaasi maalinta halka ayaan joognay waxaan ka mid ahaa cali gurey baa ka mid ahaa siciid shukri baa ka mid ahaa raggii aanu maalintaa israacnay halkaa wada joognay annaga maalintaa wax dagaalahi nalama oo kulmin fiidkii ayaanu halkii ka tagnay waanu se maqlaynay anagu halkaa maalinta aanu ku jiray dagaalo dhacaya waanu maqlaynay oo meel jihadaa waqooyi galbeed noogu beegan dagaal baa ka socday maalintaas oo dhan runtii umananaan gurman karayn waanay naga durugsaneen adaga ku dhayaduna iska tabcaan baanu ahayn maalintaas halkaa goorfiida ayaanu ka dhaqaaqnay habeenkii oo dhan waanu soconay wax jira ismaanaan habeenkaasoo dhan waanu soconay in laga tegi waayo guri laga guuray meel guri yar oo laga guuray ayaa waxaanu ka helay biyo ayaanu ka helay biyahaasna waanu iska yarcabnay waanu iska dhaafnay cadceeddii baa soo baxday marka ay cadceeddu soo baxday waxaan xasuustaa mujaahid cali raamaalo oo halkan hortay ha ku wareysateen isku guruub baanu ahay sidaa uu isba sheegay nin la oran jiray saleebaan oo ahaa raggii mutacalimiinta reerkiisa ayaa maalintaa noo dhaqaaqi waayey waan soo daba soconayaa iska sii socdo buuri meel aan kaba fogeyn ayaanu markaasi oo laaga baanu ku laaxanay nasiib darre laakiin ninkii nama uu soo gaarin halkii baa loo dugisay laagtaa markaanu ku laaxanay maalintii laagtaasaanu galay maalintii oo dhanna halkaasaanu ku jiray wax dagaalana maalintaa annaga ismaanaan halkaa markii ay gabalkii dhacay waanu ka tagnay markaa raggii wixii maalintii dee laagtaa lagu baahay waanu istoosanay waanu is urursanay 4 nin ninkii subaxnimadii naga hadhay mooyaane 4 kale ayaanu weynay allaha naxariistee mujaahid axmed koosaar farax jire iyo mawlid kuladiib jaamac bayle xamuud maxamedkii oran jiray bayle iyo nin kale ayaan xusuustaa ayaa halkaasi iyadana aan weynay runtii goorfiiduna way noqotay inaan u qaadanay in ay iyaguna ay goosmeen halkaasaanu ka tagnay reer baanu helay reerkii baanu xoogaa shaah yar iyo ka karsanay nina waanu ka kaxaysanay dalaqoona marka anaga ujeedadeedu waxay ahayd dalaqoonina lama socon dhulkana maanaan garanayn ninkaasi waxaanu markaa weydiisanay inuu na geeyo meel aanu garan karno meel aanu garan karno waqooyigii aad ku socoteen mise waqooyigii aanu ku soconay ah waqooyigii aanu ku soconay ah markaa weliba arabsiyo ama gebiley caagga ka hooseeya oo siiba agabar iyo dhulcaynkaas haddii aanu ku dhawaan karno ama na gaadhsiiyo in aanu garan karno markaa jihada wixii hadhay ninkaasi wuuna kaxeeyey habeenkii oo dhan baanu soconay goor waa ku dhawaadkiia ayuu meel buuna geeyey markaa isagu wuxuu noo sheegay meeshaasi inay tahay dhulkii aanu anagu markii hore doonaynay lagee runtii manay ahayn marka dambe waxaan loogu sheegi doonaa inay ahayd beeye dhaadheer meel la yidhaayo aynkaasa adigu aagaa bus hoosteeday ahayd baa la yidhi halkii baanu odayii waanu iska fasaxnay reerkiisii baanu isaga noqday marka halkii uu nagaga tegey markii waagii bariyey waanu ka dhaqaaqnay oo xanuunsanay waa intaasoo dhimitaan soo sheegaa ka aagbedesha meeshii waanu istoosisanay dee adigu sacab baa laysu kiciyey meesha tiradiinana waa imisa ma jirin tiradayada 8 iyo 20 ayaa weli jira adigu marka hore aanu sharow dheer ka soo dhaqaaqnay 8 iyo 20 waanu ka badnayn adigu ilaa 30 baanu ahayn laakiin marka aanu halkaa odaygu nagaga hadhay marayno subaxnimadaa uu odaygu naga tegey markaanu istirsanay
sideed iyo labaatan baan noqonay weliba halkaa uu nagaga tegayna waxaa nagaga hadhay mahdi isxalin la oran jiray allah naxariistee waanu maqlay in la qabtay markii dambe mahdi isxal baa halkaana nagaga hadhay markii waagii baryey aanu istirsanay mahdi waanu weynay cali raamaale oo halkan habeenawood ka warramayay iyo nin kale ayaanu niri halkii ka soo eega oo dib ugu soo noqday waanay soo waayey okay halkaa maalintaa markii aanu joognay buurtaa waanu ka yar cabdigaranay markii caadu soo baxday meel kayna oo dhira ayaanu galay halkaasaanu isla harsanaa halkaas sidii aanu u harsanaynay goray duhurkii ahayd ayaa nin naga mid ahaa oo gaadh hayay ayaa dabeetana wuxuu noo sheegay in ciidan uu arkay waxaa loola jiray xasan quule laha naxariistay uu dhintay isna wuxuu ku dhintay hargeysuu ku dhintay 1988 irjaax ku dhimatay habeenkii lasoo galay xasan quule oo geed fuushanaa ayaa na toosiyey ka kaca buu yidhi halkaa markaa kayntii baan ayaanu si dagaal u galay waxoogaa xabad bay nagu soo rideen anaguna waanu ku ridnay markaanu ku ridnay xabadii way joojiyeen kadib kayntii waanu ka baxnay buurtii naga dambaysay baanu dib u galnay halkaa buurtaa markii aanu galnay ayaa nimankii xabadda nagu riday oo aan islaahay qiyaastii waxay ahaayeen intii sahanka u nahay ayaa ciidamo kala kusoo xidhay xagga dambena runtii waana lagaga yimid buurtii aanu fuullay dabadeediina waana lagaga yimid xaggii horena waana lagaga yimid halkaa markaa ciidanka iyadu wuxuu u qaybsamay markii ugu horreysay ee xabaddu ay nagu dhacday aanu buurta galay rag badan horta intii aanan dagaalkuna helin cabdillaahi askar ayaa wuxuu nagu amray xaaladdii inay xun tahay sidii aynu kusoo tala gallayna aanay ahayn mowqifkeennii iyo halkii aynu ku soconayna maadaama ciidankeenii kale aynaan ka warhaynin inaynaan aanay suurtagal ahayn inaynu gaadhnaa marka laga bilaabo maanta galabta shan baa isu raacaysaan shan baa isu raacaysaan waxaa inoo ballana halkii aynu amarkaa anagoo qabna ayuu dagaalkunamay kabacdi markii aanu buurta galay rag badan oo cabdillaahi askariyo ay ka mid ahaayeen runtii shantoodii bay isu raaceenba oo mabay soo joogsanta xogaa baanu isugu soo hadhnay buurta ilaa dhowr iyo toban ayaanu isugu soo hadhnay dhowr iyo tobanka iyagii markaa dhinac walba qisaas baa nagaga timid axmed cabdirashaash allah u naxariistee ayaa markaa wax mas-uuliyiina nala joogay axmed cabdirashaash dabeeto waxaan u sheegay in dhinac walba ciidan nagaga yimid markaa axmed wuxuu go-aansaday inaanan ka bixin meesha la dagaalamo halkaa waxaa naga xoog roonaatay markaasi ciidamadii aanu la dagaalamay markaa waxay tirada iyadu intaa halkaa buurtaa ku jirtay waxaanu ahayn 13 nin baan ahay 13kii waxaanu kaga baxnay 2 aniga iyo allahu naxariisteen mujaahid ahaa irsaaq axmed cumar juxaa la oran jiray oo isna statekii halkana geesa ku dhintay labadayadaas ayaa ka baxnay marka aanu ka baxaynana xataa labadayadaas ismaanan ogeyn kaayalona layuu ka baxay anigu markaa maalintaa wixii ka dambeeyey gaar baan ahaa okay markaa jihadii buurta waqooyi weliba dhinacaa yar waqooyi galbeeda ayaa ii banaanayd halkaasaan ka baxay
ninkii iigu dambeeyey oo dhinacaa iga xigay wuxuu ahaa axmed weyne wuxuu leeyahay ninkuu joogaa axmed weyne oo markiisuu kaaga dambeysay igu yidhi ciidankeenii buurta xaggan cabdillaahi askariya ciidankaasi oo aanu haysanayna xaggan waqooyiga ku jireen ayaa soo eegaya ayaan anna halkii u maray baan ka daba tegey ismana maan arag markaa maalintaa halkaa wixii ka dambeeyey anigu keli baan noqday gaar baan u baxay reer niman geel jira ahoo geel wata oo geel caraaminayo oo goor iska fiiga ku dhawaad ayaan dabagalay geelii bay meel ku xereeyeen geelii baan dabadeeta ku iri iilisa hal bay iiliseen koob yar bay igu liseen caani yaraa baan cabdi waan iskaga tegey okay habeenkaasi markaa haddana reer baan la kulmay reerkii dabadeetana reerkaasi halkaa biyay siiyeen iyo xogaa shaahna way siiyeen iyo wanaagsan oo runtii ina gartay inaan snm ahaa waa iskaga tegey anigu ma garanaya de laakiin kulley dareenkaygii uu iska gartay inaan snm ahaa shaah iyo biyay siiyeen waan iskaga tegey halkaa markaa anigu habeenkaana keli baan bariyey meel aan isleeyahay waxay u dhaxaysaa bus iyo gabiile ayay u dhaxaysaa halkaa marka ay marayso maalintii halkaasaan iskaga jiray maalintii aragtidii baa ii furantay waxaan arkay halkaa in reeray igu dhow yihiin maqribkii baan halkii ka soo kacay reerkii baan nimid reerkii baan ka biyeystay waysadii waxoogaa garowana waan ka helay halkaa markaa waxaan waraystay halka igu beegan ee igu dhow markaa waxay dhahdeen gabilay oo in doora kuu jirta in doora macnaha marka ay dareebnigu ku yidhaahdaan nama dhawo waxa weeyaan ilaa 20 kilomitr oo kale ayaan waqooyigaa ka xigay baa isleeyahay halkaa markaa aan ka soo dhaqaaqay habeenkaas oo dhan waa socday markaa aniga talagalkaygu wuxuu ahaa inaan ka baxo aagga allay baday ku beegan inaan ka baxo aan halkaa gebile galbeed ka maro dabeetana aan aaggaa ka baxa geed ballaar iyaalay baday intaa dhex gado run ahaantii habeenkaa galbeed in baan u kacay habeen oo dhan waa socday markii cadceedda soo baxaysa waxaan isarkay anigoo mashruucii jooga wajaalay mashruucii kala baydhka ayuun baan waa berigii isarkay anoo jooga waxba maan joogsan waan iska socday wajaalaa hortayda iga muuqatay galbeedkumaa ka yar noqday cadeed soo baxa iyo tallowgaygii baa isku beegmay 2 qorina waa sitay markaa 2 qori waa sitay qoriya iyo qori kale oo aake ah labadana waa sitay maan joogsan halkaasaan ka baxay wax adano ismaanaan helin markaa wajaalay bariga ka yar maray ayaa dabeeta waxaan ku xisaabtamay halka iigu dhow ee aan tegi karaa inay tahay jooga oo wajaalay ka sarayso Ethiopiaan ku degan yahay masaafo aada u dheer bay ahayd run ahaantii ilaahay halkaa waa igu nabadgeliyey abaara 11 duhurnimo meelahaas ayaan tegay joogday markaa waxaan la kulmay niman Ethiopiaana aad bay ii soo dhaweeyeen runtii sharkii iyo wixii bay iga fureen aad bay jirkay xataa ii maydheen markaa cunto wanaagsan bay i siiyeen kadibna taar bay ii direen oo waxay la hadleen sheekh dheer oo halkaa ayaasaantii talis in nagaga hadheera joogtay markaa maxamed jaamac book baa iigu yimid oo naxariistay oo dib dhawaan dhigtay baabuurbu halkaas iga qaaday kadibna aniga halkaa waxaa la geliyay jigjiga sidaas ayuu aniga dagaalkaasi intaas kaaga dhaya waay su-aasha ugu horeysa aan caalku weydiinayna waxa weeye waxaad tidhi laba nin ayaa naga dhaawacmay mid wuxuu ahaa maxamed weere midna wuxuu ahaa nin kale oo isna mujaahid ahaa ninkaas isagoo halkaasuu ku haray ninkaasi muxuu ku dambeeyey wuxuu ku dambeeyey ninkaasi waxaan maqlay ninkaasi in dhaawacii lagu qabtay isaga iyo nin kale oo ku harayba
آخر كده للدليل. واي waxaan filayaa ciidankiinaasi arday iyo aqoon-yahan iyo ayuu u badnaa marka waxaa tiri rag badan oo mutacalimiin oo aqoon-yahan oo ka mid ah ninkii aad ka tagteen socon kari waayey baa ka mid ahaa marka ragga aqoon-yahanka ee halkaasi ku dhintay ama lagu qabtayba ee markii dambe la dilay intay leeg badan malaynaysa run ahaantii ciidanka iyagaa berigaa dagaal kaa galay kala badh halkaasay ku dhinteen wax la qabtay iyo wax halkii lagu dilay kala badh markii dambe aanu istirsanay kala badh un baa noqday 140 iyo 6 dambe 100 haddii aanu ahayn 50 aduu 27 nin marka raggaasi waxay isugu jireen dee ragga aan ku sheegaya aqoon-yahanka ahaa iyo ragga kale ee mujaahidiinta ahaa iyo madaxba way isugu jireen waa tahay caadiyan dagaalkaasi markii uu dhacay ee uu dhammaaday ee ciidankii wixii soo noqon karayay ay soo noqdeen ee la istirsaday raggii noqday dhimashada for example imaka sidaad sheegtay kala badh baa dee dhintay baa tiri marka yacni dadkii ama raggii mujaahidiintii meeshaasi ku shahiday ee dhintay waxa la sugayay sida annagu aanu maqaalay bilo badan ama muddooyin fara badan baa dadka lagu odhan jiray macnihi lagu soo socdaa iyo qaar baa magaranaysa ciidankii dib loo gelinayaa maxaa yani taas ugu wacnaa haddii ragga dhimashaba lagu ogaamo meeshiiba dee magaranaysaa aad kusoo aragteen ay ahayd aad kaga timaadeen ahayd meelaan ku badbaadi karin taniyow taas sababteeda dhowr xumood baa loo tiriyaa horta waxa weeye raggan wax toos isaga warhayay horta may jirin inta nabad gashay waa intii uun iyadu matalan aniga oo kale gruubkaygii marka aan ka warramo gruubkaygii inta dhimatay iyo inta soo baxday anigu waan garan karaa rag badan horta aagga cidna lagamay noqon oo meeshii inta lagu noqday lama soo tirinin hebel iyo hebel iyo hebel cid aaggii ahayd oo ka timi oo noo soo sheegtay warkii keentayna horta may jirin horta raggaasi marka la kala goosmo ee ay qoloba meel marto intii nabad gashay mooye intii kale dee inay dhinteen iyo in kale mar haddaan cidi ka soo bixin markaa lama garan karin laakiin muddo kadib dee markii wax sanqara la waayay way iska caddaatay dee raggaasi inay dhinteen markaa lagu laayay xataa qaar badan oo dambe oo xaggan kala soo qabtay hargeysada lagu laayay dee waa la ogaayay cali halkaas haddaan ku yaro noqono waxaa jirta for example dadkeenu ama ururka SNM dee dad tirsan bay ahayd dadkeena laftirkoodana sida war dhexdooda yaalla loo helaa waa aad bay u fududahay marka ay sidaas tahay for example axmed cabdiqaraash oo ah nin aan dee qarsoomaynin oo kale waxa uu ka mid ahaa raggii muddada dheer yani la caddayn kari waayey inuu dhintay iyo inuu magaranaysaa nool yahay marka macni waxaan taa uga jeedaan ku weydiinaya waxay ahayd maxaa keenay for example in 6 bilood oo kale ama 7 bilood ama sanad wax gaadhay laga dhigo geeriyo nolol qofku midna wallahi niyo horta niyo waxay u arkay example anigu axmed cabdiqaraash oo kale dadka nool raggii ugu arag dambeeyey baan ka mid ahay haddana dhimashadiisii iyo xabaddii ku dhacaysay maan arkay wuxuuna se garan karayaa anigu daqiiqadii aan halkii ka baxay iyo rasaastii dhacaysay dabaday iyo sidii cid loo waayay dabadeed inuu dhintay su-aasha kale ku weydiinaya cali waxa weeyaan for example ciidanka markii aad socoteen dhowr iyo 30 isugu soo hadheen taliska sareeyd la socday waxaad sheegtay in ciidan ilaala ah ay daba socdeen ama burba socdeen marka ciidankaasi ilaalada ah ma waxaad u malaynaysaa kuwa raadkiina gurayay oo dee raadkiina ku taagnaa iyo xagga dambe oo iyadana laydinkaga yimid
يعني raadkiina lagu taagnaa meel kasta aad markaa meel kasta oo aanu marro ama waana la sii hor fadhiyey ama waana la daba socday sababtoo ah aagga aanu ka gallay ayaa waktigaasi runtii asalam aan raacsanay oo kasoo horjeeday haddii aan tusaale ku siiyo ciidankii ka galay barigan haystee sheekh ka galay dhimashadoodu aad bay u yahay sababtoo ah waxay ku badbaadeen iyana waa lugeynayeen annana waana lugeynayeen waxay ku badbaadayeen waxay ahayd dadkaa nabadgelinayay dalkana way garanayeen talaqoon la'aan iyo dadkii oo markaa kaa soo horjeeday ayaa sababaysay kadib de meel kastaba yaa markaas ciidan baa lasii dejiyey oo maadaamana laga sii taxadiray ciidanku wuu lasii horteganaa su-aasha kale weydiinaya waxaa tiri markii dhow 28 nin isugu soo hadheen markan ugu dambeysay ay kala tegayseen ba ahayd waxa buur baad gasheen oo dee waa idinkii magaranaysaa labada dhinacba la tegay sida aad sheegtay marka taliyuhuna wuxuu amray inaad koox isu raacdaan oo shan aa u baxdaan si aad dee u kala fududaataan oo at least dhimashadiinu ay dee u yaraato marka markii rasaastu idin wada qabsatay idinkoo isku dhan ay idin wada qabsatay rasaastu saaxiibadiinii kale waxaa tiri 13 baan isugu soo hadhnay iyadoo weli dhacaysa rasaastu miyay idinkaga baxeen iyadoo markaa dhacaysa rasaastu may nagamay bixin waxa weeye ciidanka markii aanu ishelay xabaday nagu rideen annaguna waanu ku ridnay rasaastu markaa way naga joogsatay markaa rasaastu way naga joogsatay kadib dib baanu u baxnay buur naga dambaysay baanu galay buurta markaa aanu gallay horta amarka markana la siinayay nacam in dagaal la qabsan doono kamaanaan xisaabtanayn nacam sidaa haddii aynu ku nabad gallo caawa amarka waxaad ku qabtaan shanibo inay dhacaan inay shanibo meel isu raacdo oo sidaa lagu baxo amarkaas sidaasaan ku haysan tan laakiin markan uu dagaalku nagu bilaabmay tala fare way ka baxday okay ciidankii markii aanu xabadda isku ridnayna rasaastii way naga joogsatay mar hadday naga joogsatayna waa la kala bixi karaa buurtan baanu gallay buurtan xataa annagu aanu gallay annagu baa iska sii gallay oo difaaca dagaal iska gallay nacam may ahayn wax qorshaysnayd inaanu buurta difaaca dagaal u gallo may ahayn soomaalka buurta markii aanu waayo kumana xisaabtamin annagu ciidankan dambe ee xagga dambe nagaga iman doono intii yarayda aanu ishelay ee markii aanu rasaasta ku ridnay naga noqotay inay ciidan dambe isa soo abaabusho oo ay dagaal dambe soo gasho xagga dambana naga yimaado kumana xisaabtamin markaa ciidanka iyagii hore sidaasi ayaanaan dee wax noo qorshaysan aanay wahayn markan keliga aad ka baxayso waxaad tidhi meeshay uu ninkaas saaxiibka ah maray axmed weyne sooma ayaan maray baa tidhi marka saaxiibadaadii kale maxaa ku dhacay baad u malaynaysaa oo kuwii meesha kaaga wada haray da keligaaba tahay wallahi niyow de horta aniga sidii baa igu dambaysay dabadayna rasaas badan baa dhacday markii aan tallaabay een tegey ayaa waxaa kale oo ka soo baxay ninka aan ku sheegaya juxo igaga dambeeyey isna dabaday yar ka soo baxay isagaa aniga ii xaqiijiyey in ay ciidankii labada dhinac kala xig ay isugu yimaadeen dabeetana ragga intii ka hadlayna waxba ka nooreen adigu markii aad gaarka u baxday waxaad tidhi dalaqoon la-aan baan ahaa waxna maan kala fahmi karaynin haddana waa adigan soo beegsaday dhinacii dee aad ka soo baxaysay reserve area markaas sideeba aqoontaadu ay ahayd markaas niyo horta dee jahadaa iyo koonfurun u bax mooyaane wax kale maan kala garanay wax kale horta maan kala garanayni run ahaantii laakiin markii aan habeenkaa dambe ee reeraha aan imidan tooyanayaa ii sheegaya halka igu beegan inay tahay gabiiley sidaasaanu dabatinta markaa wixii ka dambaysay habeenkii sidaan u socday ayaa gabiiley leydhkeeda arkay iyo leydhka arabsan labadaba waan arkay markaa buuraha waqooyinka isu soo taagay iyo tilmaantii anigu haystay sidaa darteed baan dabeeta ugu xisaabtay run ahaantii horta dagaalkaasi haddii aan dib ugu yar noqdo dagaalkaasi wixii keena waynu ka soo hadalnay wixii laga faa'iiday dagaalkaasi waxaynu odhan karnaa wuxuu ka mid ahaa snm dagaalada qaarkood waxay u geli jirtay inay isu fidiyso
inuu halganku sii socdo yeelkada halganku inuu sii socdo oo aanu istaagin sidii kii SSB isu taagay aanu isu taagin ee uu sii socdo dagaaladii la isu fideynayay buu ka mid ahaa isaga iyo kii 88 lagu soo galay waddanka macnaha labada xaaladood ayaa isku dhow bay ahaayeen oo in halgankii istaago iyo inuu socdaa la doorto therefore in la isu fideeyo ummadii ayuu ahaa mowqif la qaatay in 27 naga badbaadaan daayo in cid naga badbaadaba looguma talagelin ujeedadu waxay ahayd in la isu fideeyo ummadan iyo dadway taasina way suurta gashay oo markaynaan kuba xisaabtamin intii badbaaday intii naga hadhayan dagaalkuba soo gelin ayaa dareentay intii aanan anaguba tegin Ethiopiankii aad bay markiiba isaga u raadiyeen waxay aqoonsadeen inay yihiin niman jira oo dagaalada kala wadalkooda ka dhex dagaalami kara barigii waa laga galay dhexdii waa laga galay weliba kuwaas mudaynan ka sii dambeeyeen oo waanu kala horgalay soo bixitaankiina waanu kala dambeynay intaa wixii ka dambeysay ilaa laga soo gaarayo 88 oo haddana siyaasaddu si kale isu bedelaysay oo labadii dowladood heshiinayeen aslan wixii halkaa dee joogay cisi bay ku noolaayeen iyo sharaf SSBF ku biirana lama odhan naga baxana lama odhan jirin halgankani halgan dadweyne inuu yahay oo niman halgan wadi karaya inay yihiin ayaa la aqoonsaday cabdillaahi yuusuf iyo intii ku taamaysay baaba'aana luquntii dib u celiyeen ka hor su-aasha ugu dambaysan ku weydiinayna waxa weeye ka hor intii aydan ogaanin guushaas intaa la eg inaad gaadheen adigu keli ahaan shakhsiyan aan ku weydiiyey aad baxaysay ama aad u socotay muxuu ahaa yani dhinacaasi xarumaha sanamka maxay niyadaadu adiga oo daalan oo magaranaysa gaajaysan sidee niyadaadu ahayd maxaa kaloo lagu dambayn doonaa wallahi niyo xagga niyadda marka la eego inta niyadda dee dagaal dhimashaana kusoo tala galay oo iyada horta wax niyad jabi muu jirin يعني هذا كيما تشي كذا حد في الاسم مرة تشوف كاسي كل عاي وأديكونا تلقى سيس عتي كنت يا أكبر وحمار إن عام وقت فيدي إن عام أكيد عام صوت الجميع عام يجيب ده عام كودنا وحياته هو قدام كل حساب تمني وأدي أنه ما لها قاد كل قاري لحيد عام ولقف من الحين جميل إلى كل يوم يكتشف شيء حصيا شاهدنا كل يوم waa في حقنا كذا يا كل ما هدي أنا نبغى يستي عمل عن نقلنا وشاشها لا يصير أو هل كي أن يكون نقلنا يكل يوم حنا نقول عن السنوات هذا لا يجيب لي السؤال هذا واتحي داودي البرنامج كان نتحنا وعاوا ونوجو الرمي علي عبد الله على عسى إنتاسين كسوق بكبيننا إنتاي كل مدونة برنامج كانوا خلا واحد كيتجنا سياسيو نبتجلي